madaxweynaha maamulka Hirshabelle Mudane Cali Cabdullaahi Cosoble uu ku dhawaaqay 7 degmo oo qayb ka noqonaya maamulka Hirshabelle isla markaana ku yaala gobolka Hiiraan ayaa waxa gabi ahaanba kicin galay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan deegaanada maamulka Hirshabelle waxa soconaya mudaharaadyo looga soo horjeedo oraahda ah ama tikreetadii ka soo baxday madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Cabdullaahi Cosoble oo uu ku magacaabay 7 degmo oo qayb ka noqonaya maamulka Hirshabelle sidoo kale magaalada Jowhar waxa maanta ka qabsamay kulan ay yeesheen golaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle qayb ka mid ah kuwaas oo ka soo horjeeda guud ahaan wax qabadka madaxweynaha maamulka Hirshabelle isla markaana ay ku tilmaameen inaysan jirin wax qabad uu soo bandhigay madaxweynaha maamulka Hirshabelle inta uu xilka hayay muddo sanad ku dhawaad ayaa waxa xilka maamulka Hirshabelle gacanta ku hayay mudane madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble kaasi oo ay sheegeen inaysan wax qabad uusan la imaan golaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle ee maanta kulanka yeeshay ayaa tilmaamay in madaxweynaha laga doonayo in gabi ahaanba uu iskaga dago kursiga madaxtinimo ee maamulka Hirshabelle isla markaana uu iscasbo kale waxay sheegeen in madaxweynaha ay ka keeni doonaan mooshinno isdaba joog isla markaana ay ku doonayaan in isbedel ay ugu sameeyaan ummadda Soomaaliyeed ee maamulka Hirshabelle golaha baarlamaanka oo la hadlay telefishinka bulsho ayaa waxa ay tilmaameen in mooshin kalena ay ka keeni doonaan madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble kaasi oo ay ku doonayaan isbedelka danta guud wallahi waxaan u malaynaa oo wax la qari kara aan ahaynin Hirshabelle isbedel in ay u baahan tahay marka shacabka aan wakiilka ka nahay waxaan u malaynaa reer qaranne qaara wakiil uga ah annagana Hirshabelle aan wakiil uga nahay 2 milyan ilaa 1,800,000 ayaa lagu qiyaasaa shacabka ku nool Hirshabelle dhibaatay qabaan dhibaatadana waxaa wakiil uga bulshada marka isbedel in la helo lagama maarmaan waaye Hirshabelle ay hesho marka taas wax la qari kara ba yaratay ma waxa waaye qodobada dastuurka awoodda madaxweynaha siinaya kuma qorra wax sharci ah oo u magacaabi karo degmo wax awood ka baxsan oo magacaabi karo golaha wasiirada iyo saraakiil in uu dalacsi karo hatta golaha wasiirada haday u keenaan ka kadib waaye wax awooda oo ay sii hayso dastuurka Hirshabelle madaxweynuhu in uu magacaabo degmo haba yaratay ma jirto asigana is ceebeen umadana ceebeen waxaan jeclaan lahayn inuu is casilo ويسن عبت الكاس جاري وحنا غرش يسن مدحوين عصبله systematically motion isdabayal ah oo aan marnaba baaqan iyo mucaarada kaga soo taagan umada waxay jirtaa muddo ku dhow hal sano wax hadda la taabo karo u qabsoomina malaha intaan ka ahayn dikreeta dadeed taasoo noogu soo kordhay in la sii magacaabo dikreeta degmo asal waxa aan maar ama qaad aan ka taagnayn dikreeta oo qof ama bini'aadan marka arimahaas iyo arimo kale ayaa laga hadlay shirka maanta ay isugu yimaadeen xildhibaanada waxaan ugu muhiimsanahay in la sameeyo isbedel muuqda oo dadka shacabka ah ay ku qancaan waxay garteen mas'uuliyadooda iyo maanta garteen waa midoobeen waxayna u midoobeen danta iyo maslaxada kitaabka ay u dhaarteen oo Allah subhanahu wa ta'ala dartay ugu dhaarteen cidii Hirshabelle hortaagan inay ka wareejiyaan oo sharciga mataqaal digsadana go'aan la qaatay insha Allah ta'ala waxay ka sabab noqotay xukuumadii aan u dooranay madaxweyne Cali Cabdullaahi oo shaqay weyday oo hawsheedii gabtay u sababa maaha markii ugu horeysay golaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle ay kulan ay yeeshaan isla markaana ay ku sheegaan in kulankoodu uu yahay kulan isbedel doon ah isla markaana ay kaga soo horjeedaan madaxweynaha maamulka Hirshabelle Mudane Cali Cabdullaahi Cosoble waxaana arrinkan uu ku soo beegmayaa xilli madaxweynaha uu magacaabay 7 degmo oo kamid ah maamulka Hirshabelle iyaga oo golaha baarlamaanka tilmaameen in 7 degmo ay tahay kicinkii weynaa ee galay baarlamaanka maamulka Hirshabelle Cabdi Fataax Ahmed Maclow Cabdi Fataax Zaki Bulsho TV magaalada Jowhar